duhur wanaagsan daawadayaal. Tijaabada waxay ka imanaysaa ciidamada dhulka, ciidamada badda iyo kuwa cirkaba. Ruushku waxa uu diyaariyay ciidamadiisa inay qaadi karaan dagaal, waxaana si joogto ah ula socda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxa qayb ka ah dhoolatuska gantaalada balastiga isaga gudba qaaradaha, kuwaas oo awood u leh inay qaadaan madaxyada nukliyeerka ah. Tan waxay cabsi weyn ku abuurtay dalalka reer galbeedka oo iyagu labadii maalmood oo la soo dhaafay ku shirayay dalalka Belgium iyo Jarmal. Waxay isku raacsan yihiin dagaal bilowda inuu noqon karo dagaal weyne saddexaad. Wariyeyaasha ka soo warramaya bariga dalka Ukraine waxay bilaabeen orodkii iyo carcararkii lagu yaqaanay wariyeyaasha ka soo warrama goobaha ay ka socdaan dagaalada khatarta ah. Dowladda Ukraine waxay ku eedeynaysaa kooxaha go'aan-goosadka ah ee taabacsan Ruushku inay gantaalo ku soo ridayaan ciidamada dowladda. Kooxaha go'aan-goosadka ah waxay ku eedeynayaan dowladda Ukraine inay soo weerarayso, waxayna isu keeneen dhammaanba wixii rag ah oo dagaalami karayay. 5 qof oo reer Ukraine ah, 1 qof oo keliya ayaa aaminsan Ruushku inuu soo qaadayo dagaal dhammaystiran. Magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine waa mid weli kala socota, dadkuna ay shaqooyinkoodii maalinlaha ah ku jiraan. Halkani waa tareenka dhulka hoostiisa laga raaco, waa kan ugu dheer adduunka. Waxa uu dhulka hoos u qodan yahay in ka badan 100 mitir. Waxaa dhisay dowladdii Sofiyeetka xilligaas oo ay baqdin ka qabtay in Mareykanku ku soo weerari doono nuclear. Dadka reer Ukraine qayb ayaa sii sahansaday inay halkan kaga dhuntaan haddii uu Ruushku dagaal weyn soo qaado. Daawade, waxaynu indhaha ku haynaynaa hadba wixii iska bedela xaaladdan cakiran ee dalka Ukraine. Subscribe saar, ku xirnow. Daawadayaal, waxaa maalinteedii labaad socota daadguraynta la daadguraynayo dadka ku nool bariga dalka Ukraine gobolka Donbass oo asal ahaan iyagu ka soo jeeda dalka Ruushka. Maalintii doraad ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Donetsk ee adduunku u aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah dalka Ukraine uu ku dhawaaqay inuu daadgurayn doono dadkiisa. Waxaana uu ka bilaabay carruurta iyo dadka da'da ah iyo dadka xanuunsan. Daadgurayntan ayay reer galbeedku ku macneeyeen inay tahay qiilkii ugu weynaa oo uu madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin duulaan ugu soo qaadi karo dalka Ukraine, isagoo ku andacoon doona in la xasuuqay lana qixiyay dadka ka soo jeeda Ruushka ee ku nool dalka Ukraine. In ka badan 500,000 oo dad oo halkaas ku nool ayaa la qorsheynayaa in la daadgureeyo.